السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوائل كسر لوضع ورئيس جارة الله يلدون قدوميها أورك الصومالي ده إفو ودن كان الجرمالكا إن عبد الله وعيس إن عبد الله هو كسر لونا تلفزيون عالمي جهون كابل تي في وإن كان هذا لنا وقت يقروح بدل لا النصيصي إن waxaan doonay gudoomiye ugu horeeyay ku weydiiyo in tafaasiil naga siiso waqtiga la aasasay ururkan iyo joodooyinka loo aasasay. waad mahadsan tahay wariyacaynta waan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo daawadayaasha Home Cable TV ba haddaan ku sheego ururka Somalis Info waxaa la aasasay December 2016 waxaana loo aasasay in uu wax ka qabto arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin integrationka xuquuqda Soomaalida oo la soo dhiciyo dadka Soomaalida ah oo la wacyi geliyo dadka Soomaalida oo laga kaalmeeyo fahamka iyo nolosha Jarmalka iyo arrimo fara badan oo arrimahaas la mid ah ayaa Somalis Info loo aasasay December 2016 in waa tahay Cabdilaahi Wacays in dhawaan waxa jiray in mudaharaadyo kala duwan ee Soomaalidu sameysay wadigoo in aad hogaaminayseen in xiriir ku dambeeyeen Somalis Info wax qabadkeeda ama waxyaalaha ay soo xil saartay waxa kamid ahayd caqabad inay wax ka qabtaan ugu yaraan caqabadaha ka haystay qaadashada jinsiyadda Soomaalida wadankan Jarmalka guud ahaan iyo gaar ahaan gobolkan aan deganahay ee Hessen Somalis Info waxay dadaalkaas dadaal xoog badan ay ka sameysay waxay qabatay 12 shir waxay qortay ilaa iyo 2 petition iyo wax ka badan petition hal ah oo kor u dhaafaya 35 Somalis Info waxay qabatay ilaa iyo 3 mudaharaad ugu dambeyn natiijadii waxay noqotay in ilaa iyo hadda la sameeyay guddi heer federaal ah oo ka soo tala bixiya xalinta dhibaatada Soomaalida guddigaas oo muddo sanad ah shaqadiisa soo waday waxaa la rajeynayaa bishan 6 in uu soo bandhigo gabagabada natiijadii shaqadii uu soo waday oo filayo in ay wax wanaagsan ka soo bixi doonaan waxa kale oo si xal ku meel gaar ah oo hadda hordhac ah ay isugu fahmeen xildhibaanada gobolka anaga Hessen iyo wasaaradda arrimaha gudaha in qofkii doonaya in uu jinsiyadda Jarmalka qaato marka hore uu cadeeyo qof qaraabadiis oo dhow oo hore asaga identity-giisa loo cadeeyay sida inuu qofka jinsiyadda Jarmalka hore u qaatay oo kale ama inuu jinsiyad kale oo European ama Mareykan oo kale inuu wato qofkii ay cadeeyaan qofkaas oo kale asagana waxa ay isku fahmeen xildhibaanadii iyo wasaaradda arrimaha gudaha in sharcigiisa la siiyo waxaan rajeynaynaa mar dhow in ay natiijada ugu horeysay dadka ugu horeeyay inay qaadan doonaan isbuuc kadib ama 2 isbuuc kadib waa tahay Cabdilaahi Wacays waxa jira in dhalinyaro tiro badan oo in 3 sano ama 4 sano u dambeeyay wadankan Jarmalka ku soo badanaya in dhalinyaradaasi in maxaad u qabatay ma la oran karaa dadka cusub xaqiiqatan laftirkooda dhibaatooyin fara badan ka haysta xagga qaadashada sharciga waxaan ka wadaa ogolaanshaha inay helaan qaxootinimada laakiin taas waa mid ay go'aankeeda leeyihiin hay'adda jinsiyadda iyo socdaalka oo la yiraahdo BAMF ama Bundesamt für Migration und Flüchtling way jirtaa dad fara badan oo ayagu aan weli go'aan laga gaarin mudana ay ku qaadatay in ay iska joogaan laakiin hadda waxaa moodaa in ay siyaasad cusub soo bixiyeen oo ah in qofku uusan waqti fara badan aan uusan sugin go'aanka gaarista kayskiisa waxaan rajeynayaa taas in ay Soomaalidu ku dabaqmi doonto laakiin ilaa iyo hadda waxaan rajeynaynaa waxaa jirta in Soomaalidu ay ka mid yihiin dadka go'aamada xilliyada fogfogsuga walow ay jiraan dad qaarkood oo loo fududeeyay xilliyada dambe oo waxaan hadda ka warhayaa dadka qaar magaaladaanada ama areadan iska soo dhiibay oo muddo 2 bilood gudahood ah ogolaanshii lagu siiyay waa tahay gudoomiye Cabdilaahi Wacays waxa jira dhibaatooyin tiro badan oo haysta daayarta muddooyinka ugu dambeeyay wadanka Jarmalka ay ku nool qaar badan oo kale oo ay xidhan yihiin jeelasha ku xidhan yihiin intee la kala ayaad kala socdaa sooran kartaa inta badan waxyaalo fara badan aan kala soconaa xaqiiqatan dadku markii ay tiro bataan oo waliba haddana ay da'yar aan waalidiintooda la soconin dhibaatooyin fara badan ay la kulmaan xaqiiqatan waa qaarkood waan booqanaa qaarkood waa nala soo xiriirsiya inaan dhibaatadooda wax ka qabanno qaarkood waxay galeen dambiyo xagga sharciga ah oo anagu aan waxba ka qaban karin laakiin ugu yaraan waxaan isku daynaa inaan
ka wacyigelino waxyaalaha dhibaatada u keeni kara wayna soo badanayaan laakiin waxaan rajaynaynaa hadda kadib in aan si toos ah aan wacyigelin barnaamij ku saabsan da'yarta aysan waalidiintooda la soconin in aan sameyno isla markaasna aan ku booqano qaarkood xabsiyada qaarkoodna aan la socodsiino shuruucda iyo inay dembiyada iska ilaaliyaan cabdilaahi wacays waxaa jira muddooyinka ugu dambeeyey waxaa waddankan jarmalka ku soo badanaya in qoysaskii ama haweenkii laga qaadanayo caruurtii dhowaan waad ogeydo magaalada hamburg arrintaas way ka dhacday qaybo ka mid ah gobolkan hayseen aan joogno way ka dhacday ururkiinu gacanteele ka qayb qaatay ururkeena wuxuu ka geystay gacan weyn isla markaasna gacanta ugu weyn waxaa waaye qofka inaa khatarta ay leedahay arrimahan inaad ku wargeliso qofku marka uu halista uu og yahay ayuu iska ilaalin karaa inta badan waxay ku dhacaan aqoon la'aan xagga sharciga ah uma malaynayo in qof Soomaali ah in oo hooyo Soomaaliyeed ama aabbo Soomaaliyeed inuu u bareerayo inuu ilmihiisa dayaco marka maadaama ay aqoon la'aan xagga sharciga jirta ayaa waxay keentaa in dadka qaarkood ay isku dhacaan ayaga iyo hay'adda u qaabilsan caruurta iyo waayeelka oo la yiraahdo Jugendamtiga in ay isku dhac oo faamilada Soomaalida ay ka yimaado sidaas darteed waxaan hadda isku daynaa inaan ka wacyigelino waxaana noo qorshaysan barnaamijyo joogto ah oo ku wacyigelinayna faamilada Soomaalida sidii ay isaga ilaalin lahaayeen in ay caruurta laga qaato isla markaasna ay xagga dayacaad xagga sharciga uu ku imaado waa tahay cabdilaahi wacays ururkiinu weli imika mid soo gaadheen dad caruurta laga qaatay oo aad xaliseen wayna soo gaareen isla markaas laakiin xal buuxa oo ilaa hadda aan ka gaarnay ma ay jirto laakiin ugu yaraan xalkii waa u tilmaanay waxaa dhici karta anagu inaanan looyaro ahayn isla markaasna aan go'aano maalan maxkamadda ah oo dadka qaarkood ay ku dhaceen aanan maxkamaddii dib ooga soo celin karin laakiin ugu yaraan qofka inaan waddada tusi karno waxaa kaloo jirta ayada laftirkeeda arrimo kale oo aan dhex galnay hay'adda Jugendamtiga iyo faamilada qaarkood oo aan tusnay in arinta ay sida ay Jugendamtiga u malaysay aysan ahayn ay waalidiintu jecel yihiin inay ilmahooda xanaaneystaan ay tahay sharciga oo aysan aqoonin iyo waxyaalo ay si ula kaca aysan u sameeynin marka waxaana hadda noo qorshaysan wada shaqayn annaga iyo Jugendamtiga dhexdeena ah oo aan ku wacyigelinayno faamilada Soomaalida oo ugu sheegayno halista ay leedahay in ay caruurta siyaabo qaarkood in loola dhaqmo marka arrimaha aan dhexgalnay way jirtaa arrimo qaarkood oo aanan ilaa iyo hadda aan xal ka gaarin way jiraan isla markaasna waxaan hadda qorsheynaynaa in aan wacyigelin ka samayno arrimahaas hadduu ilaahay yiraahdo waa tahay cabdilaahi wacays su-aasheeda ugu dambaysa dhibta ugu badan ee Soomaalida ku haysta waddanka Jarmalka maxaad nooga sheegi kartaa dhibta ugu badan ee Soomaalida ku haysata Jarmalka waa kuwooda cusub oo inta badan sharciyada ka raaga isla markaasna fahamka xagga sharciyada ah ayaduna dhibaato xoog badana ka haysata waxaa kaloo dhibaato ka haysataa kuwoodii hore inay caqabada ka soo waajaheen qaadashada jinsiyadda Jarmalka marka dhibaatooyinka waa iska badan yihiin laakiin haddana waxay oola siman yihiin dadka ajaanibta ah ee waddanka ku nool ugu dambeyntii adoo ka faa'iideysanaya waqtigani maxaad halkan uga soo jeedinaysaa Soomaalida ku dhaqan waddanka Jarmalka waxaan u soo jeedinayaa Soomaalida ku dhaqan waddanka Jarmalka in ay isku duubnaadaan in ay is urursadaan oo ay ka shaqeeyaan maslaxadooda Jarmalku wuxuu u sameeyay yahay qaab aan lagu dhahaynin xuquuqdaada kaale adigu qaado in adigu doonato ay tahay sidaas darteed intii isfahmi kartaba in ay isku leexdaan xuquuqdooda soo dhacsadaan waa tahay aad baad mahadsan tahay kaas waxa weeyaan gudoomiyaha ururka Soomaalida IFO ee waddankan Jarmalka oo fadhigoodu yahay magaalada Kassel ee waddanka Jarmalka aad baan kugu mahadcelinaa cabdilaahi wacays waa filan qaadistii Mustafa Cabdikariin Mustafa Future iyo anigu Cabdirashiid Caynta oo dhamaantii ma idiga tagay sidaas iyo nabadgelyo
iyo sida sharafta qarankeed maalintay qaraadhahay taariikhda lagu qoro sida sharafta qarankeed maalintay qaraadhahay